الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى نعمooyinkiisa waxaa ka mid ah inuu u yeelay addoomihiisa wakhtiyo ay nafahooda ku hufaan, axwaashooda iyo arrimahoodana ay ku hagaajiyaan, cudurrada iyo dhaqamada aan wanaagsanayn ee ay lahaayeenna ay iska daweeyaan. wakhtiyadaasi waxaa ka mid ah shahru ramadaan almubaarak, bisha ramadaan ee barakaysan. ummadeenna maanta marka la eego iyo shacabkeennan, cudurrada halista ah ee diintooda iyo adduunyadooda labadaba waxyeeleeyey waxaa ka mid a bal kuwa ugu daran lagu tirin karaa cunitaanka daroogada la yidhaahdo qaadka. cunitaanka daroogada la yidhaahdo qaadku inuu daroogo yahay haddii wakhtiyada qaarkood uu khilaaf ka taagnaan jiray, maanta wax khilaafoo haba yaraatee ka taagani ma jiro. munadamatu sixa alcaalamiya, hay-adda caafimaadka adduunka 1937 ayay ku dareen liiska daroogada, iyadoo wakhtigaasi weliba maadooyinka ku jira si dhaboo cilmiga aan loo wada ogaan. maadada kaatiinka la yidhaahdo oo daroogo khafiifa ah ayaa wakhtigaasi cilmi baadhis lagu ogaaday qaadka inay ku jirto. 1975 waxaa la ogaaday maado kaloo taa kasii daran inay ku jirto oo kaatinuun la yidhaahdo, oo ta dhibaatada u badan u geysataa dadka cuna ee waalida faaliga iyo xanuunadan u darane laga qaado keenta. culamaa ulislaam qarnigii 10aad iyo ka hor ayay in badanoo ka midii fatwoodeen xaaraannimadiisa. waxaa ka mid a faqiiha shaaficiga ah ee la idhahdo ibnu xajar alhaytami almaki ee kitaabka minhaajka ku sharaxay kitaabka idhaha tuxfat lmuxtaaj. wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo taxdiiru thiqaat min alkafati walqaat oo xaaraannimadiisa uu ku caddeeyey markii sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa u daraaseeyey. culimo fara badan oo reer yamaneed ah oo iyaguna sidaasoo kale wakhtiyadaa hore fatwooday xaaraannimadiisa ayaa jira. 1402 markay ahayd taariikhda hijrigu, shirweyne culimeed baa ka dhacay magaalada madiina, gaar ahaan aljaamica alislaamiya, oo lagu daraaseeyey qaadka iyo xukumka uu qaadan karo marka la eego shareecada islaamka. waxaanay noqotay natiijadii ka soo baxday qaadku inuu ka mid yahay mukhadiraadka, daroogada inuu ka mid yahay. dowladaha islaamka oo dhanna ay waajib ku tahay inay la dagaalamaan, ciqaab lagaga go'i karana ay u dejiyaan dadka cuna. sidaasina uu xaaraan ku yahay mar hadduu daroogo yahay. xataa haddaanu daroogo ahaan lahayn, xukumkiisu sidaasunbuu ahaan lahaa, waayo waxaa xaaraantii daroogadoo qura maaha. shay kasta oo dhibaatadiisu ay ka badan tahay dheeftiisa iyo waxtarkiisa, xaaraan buu ku yahay fi shariicati alislaamiya. ilaahay baana subxaana wa tacaala qaacidadaa si fiican ugu tafatiray oo ugu sheegay kitaabkiisa. yasaluunaka can alkhamri walmaysir qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas
وإثمهما أكبر من نفعهما ويكويدين يا خمر يا خمارك وحتى هذا dhibaatooyin bay leeyihiin dadka qaarkoodna waxtar bay ka helaan laakiin waxyeeladooda ka weyn waxtarkooda xukunkoodina ilaahay wuxuu ka dhigay xaaraannimo inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaam rijsun min camali shaytaan fajtanibuuh khamriga iyo khamaarka iyo asnaamta iyo qoryaha laga faaliyo intuba waa qurun iyo wasakh shaqo shaydaana oo bani aadamka uu qurxiyo si uu ugu yeeleeyo diintooda iyo dadnimadoodaba ka fogaada buu ilaahay subxaanahu wa tacaala khamrigu waa daroogo qaadkuna waa daroogo nooca darooganimo ayuunbay ku kala duwan yihiin qaadku waa daroogo dadka kicisa oo qofka gelisa xaalad kacsanaana oo qofka dhiiggiisu uu kaco waana tasababta xanuunkan faaligee waddankeena maanta aadka ugu badan markay dhakhaatiirtu ka hadleen faaliga waxa keena xididada dhiigu maro oo yaryaraaday amaba se qarxay inta badan faaliga caalamka ka dhaca waxaa sababa say dhakhaatiirtu sheegeen in dadka xididadu ay yaraadaan ama ay awdmaan 80% waddankeena dhakhaatiirta ka howlgasha waxay tilmaameen 80% faaliga waddankeena ka dhaca waxaa sababa inuu yahay xididada dhiigga oo qarxa oo dhiig xawliya oo ka tan badani uu maro waxaanay arrintaasi u aaneeyeen inta badan daroogada qaadka ee dadku ay cunayaan waalida inuu keeno waa la isku waafaqsan yahay oo waa shaki la'aan oo maanta waxaa ka furan magaalada Hargeysa oo qura 100 xarumood in ka badan oo ay ku xidhan yihiin dad waali markaa laga dareemay amaba se waali ay ku cadaatay waalidaasina waxaa la isku waafaqay badankeeda waxa keenay inuu yahay qaadka ay ku jirta maadada waalida keenaysa iyo xaaladaha ka dhasha oo laftoodu waalida keenaya waynu ogsoonahay oo dadka qaadka cunaa mar allaaliyo markay gacanta ku dhigaan farxad baa gasha markay cunistiisa bilaabaan waxoogay ay wadaan ee kicitaankii dhiiggu uu bilaabmo ترورق يا هذا اليشيكو آدو تربضا ولغو يا حاران وبضا أيا بلاوانتا مركا وكسي دبعو يقف كديقي سوادو سيقارو وحا بلاوانتا آمسنان يا على مدها والده وقاركود أفكم بيدق رقاتيانو مربدين عدوان قارنا فرهوده قارنا waxay bilaabaan qoryaha si ay diirteen calaantii ay ka cuneen inay jajabiyaan astaamo waaliyeed baa markaaba bilaabma kadib waxa ku xiga waa warwarkaasi in badan oo dadka kamida wuxuu u sababaa inay maskaxdoodu duqayso oo ay waashaan waxa kale oo uu sababaa hurdalaan oo la isku waafaqsan yahay oo iyaduna kamida waxyaabaha u daran ee waalida keenay ee sababa waxa qaadku u burburiyay umadeena dhaqaalaheeda waxyaabaha u daran ee sababa qofku inuu waajibaadkiisa gudan waayo ayuu qaadku kamid yahay waana astaamaha daroogada lagu garto astaamaha daroogada ayaa aad uga dhex muuqda qaadka oo ay kamid tahay al-idmaan la qabsashada waxaan cunto ahayn oo cabitaan ahayn oo dawo ahayn oo haddana qofku aanu ka maarmi karin waa astaamaha daroogada ee ugu muuqashada badan inuu leeyahayna shaqi kuma jiro meel walba qofku uu maraya wax walbana uu siisanaya hawl kastana uu u gelayaa
waxaa kaloo astaamaha daroogada ka mid ah qofku inuu noqdo qof hawlihiisa iyo arrimihiisa oo dhan dayaca oo habeenkii oo dhan markuu soo jeedo qofka qaadka cunaa in badan waxaa dhacda shaqadiisii maalmeed inay dayacanto oo hadduu cid u shaqaynayay shaqadii laga eriyo waana tasaabtay maanta in badan oo bulshadeenna ka midi qofka ay shaqo u dirsanayaan inay shardi uga dhigaan inuu qofkaasi noqdo qof aan balwad lahayn qof aan qaadka aan cunin dhaqaalaha lagu bixinaya isaguna aad buu u tiro badan yahay oo waxaa laga yaabaa qofka dakhligiisii oo dhan ama badankiisii inuu daroogadaasi ku bixiyo oo naftiisa aanu waxba uga quudhin reerkiisi iyo carruurtiisiina uu ka qadiyo aad baanay taasi maanta u badan tahay waad ogtihiin lacagta tirada badan ee malaayiinta ay maalin walba dalkeenna ka baxda waxaa la siistee lagu bedeshayna ay tahay waalida iyo xanuunada noocyooda kala duwan waali oo qura ma aha dhakhaatiirtu markii ay ka hadleen waxay sheegeen xanuuno tiro badan oo laga qaado gaastariga alsarka ee caloosha nabara ku sameeya waayo maada ay siidho halisa baa ku jirta oo qaarkood ay yidhaahdeen waxay la mid tahay maadada hargaha lagu magdiyo hargaha qurmay maadada lagu maydho ayay la mid tahay oo tasaabaysa qowla la cadaanta iyo dibnaha dildilaacaya iyo nabara ku samaystma qofka hungurigiisa iyo caloosha inay nabara kaga samaysmaan oo gaastariga nooca u daran qofku inuu qaado xanuunada laga qaaday dhakhaatiirtu ay sheegeen aad bay u tiro badan yihin waana in la dhegaysto waxaa la yaab la walaalayaal waxaasoo dhibaataa leh oo maanta shar mooyaane wanaag loo sheega aan lahayn oo xataa gaaladu iyagoo ogol khamriga in la cabo wadamadooda u ogol isagaanu ogolayn waayo waxaa cilmi baadhis lagu ogaaday innaguna aynu dareemi karnaaba khamriga xaaraannimadiisa ilaahay baa kitaabkiisa ku caddeeyey nebiguna si cad buu u qeexay laakiin dhibaato ahaan marka la eego qofka khamriga cabiye ka qaadka cuna marka la isu eego dhibaatada u geysanayaan dhibaatada uu qaadku dadka u geysto ayaa ka badan dhibaatada uu khamrigu dadka u geysto kuwa khamriga cabaa way iska seexdaan oo isagu waa seexiye waa daroogo seexiye ah kii qaadka cunayna waa kaa soo jeedaya ama teedku u furaa oo cuntada aada u cunaan ka qaadka cunaana ama teedka ayuu ka xidhayaa kadibna calool istaag buu qaadaya babaasiir baa ku xigta nafaqa daro horkacaysa xanuunada noocyooda kala duwan oo dhan kuwa khamriga cabaa xataa maanta ee gaalada ahi si iyagu ay u arkaan si basar le inay tahay bay u cabbaan oo waktiyada ay shaqaynayaan ama wakti shaqo u ah inta badan ma cabbaan waktiyada firaaqaday la egtaan sida kuwa soomaalida ee khamriga cabee isku qowdhamiya ee sida caanaha geela iyo biyaha u qurquriyana uma cabbaan in yaroo kooban oo ay isleeyihiin maanka idinka qaadi mayso ayay inta badan cabbaan khamrigu ragga hamadooda wuu kordhiyaa qaadkuna wuu yareeyaa oo wuu dhufaanaa maskaxdii qofka ayuu khalkhalinayaa dheecaamo fara badan oo waktigii ay soo bixi lahaayeen aan la gaadhin ee munaasibka ahayd ayuu qofka ka sii daynaya hadday biyo tahay hadday macaadin tahay hadday fitamiinaad tahay iyo intii loo baahnaa in ka badan ayuu qofka ka sii daynaya waa kuwaa dadka qaadka cunaya badankoodu wada qallalan ee wada gubtay waxaa dhibaatadiisu ay sidaasi u muuqato oo maanta dadka cuna haddii microphone lala dhex qaado mid dafirayo xaqiiqada isdiidsiinaya mooyaane intooda badane ay qirayaan dhibaatadiisa waayo dhibaatadiisa way taabteen wadiga ay galeen oo ay ku gubteen miyaanay la yaab lahayn inuu waddankeenna shay caadiya u ka noqdo oo dadkeennu ay u qaybsamaan in cunta
iyo in iibisa iyo in si kale u caawisa mid marfash u furo lagu qayilo mid shaaha ka iibiya mid biyaha u dhigdhiga waa arrin aad iyo aad looga yaabo wey oo weliba iyadoo caalamkii oo dhan uu isku waafaqay culamaa ulkufaar wa culamaa ulmuslimiin inuu daroogo yahay haddana inaan daroogo u haysano dad caadi aan isu haysano oo kan iibinaya daroogo inuu iibinaya aan isu haysan dhibkiisa haba qirabee oo ka cunaya haddii lagu idhaahdo daroogaystaa tahay adigoo sirkhaan baa tahay wuu xanaaqaya waana xaqiiqadii dhabta ahayd ee jirtay weeyi laakiin wuu isdiidsiinayaa oo naftiisa ayuu dhaafinaya oo wax aada loola yaabo weeye inaynu shay caadiya aynu aragno waxa noocaasiya oo xataa qofka cunaya dadka badankoodu aanay u arag inuu yahay qof ay wax ka khaldan yihiin ama qof xuno noloshii saxda ahayd waddadeeda ka baxay ay u arkaan inuu yahay qof dadka uun la mida oo uu qayilaa uun ayuunbaa qunyar la odhanaya qofkaas wax weyn inuu xumeeyey ama uu biiyey dhib inuu naftiisii iyo ummaddiisii u geystay looma arko oo dhibaatadiisu way inoo muuqataa si dhaba aynu u dareenno nafteenna aynu runta u sheegno hadday dawlad tahay iyo hadday dadweyne tahay hadday tahay kuwa ka ganacsanaya iibinaya iyo hadday tahay kuwa cuna bal naftooda gooni ha ula baxaan oo qof waloo cunaa naftiisa gooni ha ula baxo oo dhibaatooyinkiisa ha tiriyo oo ha ku cibro qaato dhaawaca qaadka ee meel walba yaalla ee cilaajiyada iyo xarumaha dadka waalwaalan ka buuxa iyo dadka khadkii nolosha ee saxda aha u ka saaray oo maanta waxaa dhici karta waddankeena in laga helo nin dhalay 10 inan ama hooyiya aabbo 10 inan dhalay oo aada iyo aada ugu tabcay oo dadaal badan geliyey oo qaadku uu noloshii ka saaray oo 10kaa inan hawl iyo dhibaato dhakhtargee iyo xidh iyaga quudi reerahooda u biiliyo hoyooyinka qaarkood ay la gaadheen ee usoo dawarsadaan mooyaane waxtar kale waalidkood aanay u lahayn waayo ama qaadka maxaabiistiisay ka mid yihin oo isagay u xidhan yihin ama dhaawiciisay ka mid yihiin waddadii nolosha saxda ah ayuu dhab ahaan ka saaray war wax lala yaabo miyaanay ahayn dadkeenu sunay og yihiin maalin walba inay cunayaan isaga laftiisa ayay ku jiraan mawaad saama markii la baadhay shaybaadhada la geeyey maadooyin suna haddana sun kale ayaaba lagu iidaamaayo dusha lagaga daraa xididkaa lagaga shubaa si uu hore ugu baxo curub uu u yeesho la cuni karo dushaa lagaga buufiyaa si cayayaanka looga celiyo oo caleemihiisu ay u qurux badnaadaan oo kuwa dhalaalaya ay u noqdaan dhiidhiitida caalamka beri hore laga mamnuucay ayaa dusha lagaga buufiyaa markaasay dadkeenuna ay cunaan markaasay qaar badan beerkooda ku ururtaa oo muddo kadib dabeetana ay u soo dhacaan oo ay u dhintaan dadka inaga dhinta ee xanuuna ay dilaan waxaan isleeyahay waxa u badan inta ay dileen xanuunada qaadka laga qaaday kuwaasi ayaa u tiro badan waad ogtihiin celceliska cumriga Soomaalidu halka uu marayo inuu ku soo ururay 40 sanadood inuu ku soo ururay wadinka arkayo wadanka dhalinyar iyo daayar baa ka buuxda dad waaweyn aad bay ugu yar yihiin horay dadkii waaweyn u dhimanayaan oo u gumaadmayaan war ilaahay ha laga baqo aqliga laga shaqaysiiyo oo bal horta guud ahaan baa aynu dareenno mid cuniyo mid aan cunin mid dawladda iyo mid dadweyne shacibaba waxaana inuu yahay ciidan shaydaan inuu soo duulay oo diinteena la dagaalamaya oo taariiku salaadka ugu badani kuwa qaadka cuna weey kuwa qaadka cuna ee tukadana badankoodu salaad saxa oo khushuuc leh oo qalbi soo jeeda leh oo waqtigeeda loo ilaalinayo oo jamaacada loo dhowrayo badankoodu ma tukadaan raggii cuni jiray ee tijaabiyey oo waxa ay sheegeen sheekh la oran jiray albayhani oo ah sheekh yamani oo berigii hore qaad cunaha
markii dambe qaadka xaqiiqadiisa uu ogaaday gabayo ayuu ka tiriyey uu ku sheegaya inuu yahay wax bani aadam cuno inaanu ahayn xoolo mooyaane bani aadam caqligooda ka shaqaysiiyey waxay cunaan inaanu ahayn inama alqaatu xashiishun akhdaru laysa yaxtaaju ilayhi lbasharu faida ma akalathu ummatun facduruhum fainamaa hum baqaru qaadku waa geeda cagaaran buu yihi basharku uma baahna waayo dee cunto maaha wax la cabana maaha oo halkii cuntada qofka u geli maayo cabitaanka halkiisina u geli maayo dawana maaha qofka xanuun ka daweynaysa haddaad aragtaan ummad qaadka cuntay hala yaabina isaga cudur daara bani aadamnimada xaggeedii bay ka fogaadeen oo xaggii baqarka iyo looda ayay u dhowaadeen bal aduu qof bani aadam oo geed daaqaya aan cunto ahayn aan cabitaan ahayn aan dawo ahayn oo wuxuu yeelo mooyaane haba yaraatee wuxuu u tarayaa aanu jirin bal aduu maxaad ku macnayn leh runta inaynu isu sheegno ayaa fiican oo dareenka bahalka dhammaanteen baynu ka qaadan daayar iyo waayeel rag iyo dumar culimo iyo dadka intooda kale waxba ha dhegaysanina wadaad isaga laftiisu daroogada cuna wadaad daraagaystaa waxba ha dhegaysanina waa quud u awliye iyo waa geed fiican iyo waxa idinku lugoynaya daroogadii baa ka hadlinaysa isaga laftiisa oo naftiisa uu ka jari laayahay markaasuu ummadiina lugoynaya waliba magacyo fiican uu ugu bixinaya oo diin waxa weeyaan uu uga dhigaya ilaahay baan subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa cudurkaa xun ummadeenna inuu ka daweeyo quluubtoodana inuu ka jeediyo dhibaatadiisana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ina dareensiiyo aqulu qawlii hada waastaqfiru llaha lii walakum alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala alظaalimiin ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أطفر بدن باقات كعنا لباتدي سنة درينسان نعب وله دمي حدنا قاركود يا مسيهين إن أنا إسكبد إن كرنو لا أنت أنا نولان بكرين أو دروجات وأي بنت نوع عاسية قلبي جودة iyo maskaxdooda ay u sheegtay qaar kalena inay iska daayaan waaba doonayaan oo jecel yihiin laakiin wadadii ay arintaasi u mari lahaayeen ayaanu cadaan waxaan soo jeedinayaa biidn illaahi subxaana wa tacaala asbaab aan isleeyahay waxay ku caawin kartaa qof kasta oo qaadka cuna inuu qaadka iska daayo sababta koowaad waxay tahay an yatawakkala cala allah awoodaada iyo xeeladaada waxa xun ee dareensan tahay kagama tegi kartid allah subxaana wa tacaala tala saaro waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu ilaahay baa kugu filaan doona oo cudurkaa xun kaa kaafii doona arrinka labaad wuxuu yahay ilaahay kaalmo weydiiso waxaad tiraa ilaahay geedkaa xun inaan iska daayo ilaahu igu kaalmay oo igu caawi oo arrinta awoodeeda iyo go-aankeeda iyaal waayo nebi maxamed wuxuu yihi ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah wixii ku anfacaya ku dadaal ilaahayna subxaana wa tacaala kaalmayso arrinka saddexaad wuxuu yahay ducada qofku inuu ku dadaalo sujuudda uu ku ducaysto waqtiyada ducada la aqbalana uu la eegto oo ilaahay uu ka baryo qadhaadhkiisa iyo qarhmuunkiisa iyo qiiqa la socdaba qaad cunka sigaar cabisina way la socota oo kuwa qaadka cuna badankooda sigaarka way cabaan kuwa kale aan cabinna ee laakiin qaadka cunana saaxiibadeed baa sigaarka cabsiiya waayo meel yaroo xidhan buu fadhiyaa saaxiibadii kula qayilaya oo sigaarkiibay midig iyo bidixba kala fadhiyaanay burburinayaan sanka iyo afkaba uu ka qaadanaya haddana waxaa laga yaabaa inuu ku faano anuu qaadkuma yaro taataabtaaye sigaarka ma cabo marka ilaahay subxaana wa tacaala inuu baryo waxaa qadhaadhkiisa iyo qarhmuunkiisa iyo dhibkiisa ilaahay inuu tusiyo oo qalbigiisa ilaahay uu ka jeediyo qofku inuu ilaahay ka baryo weeye arrinka afraad wuxuu yahay alcaziima arrin waliba go-aan buu u baahan yahay oo qofku wuxuu odhanayo iyo tallaabooyinka uu qaadayo iyo waxa uu daynayaaba
go-aan bay ku dhisan yihin markaa qofku markuu dhibaatooyinkiisa oo dhan arkee naftiisa si dhaba ugu sheego usoo bandhigo waa inuu go-aan gaadho fa idaa cazamta fatawakal cala allah in badan oo ragga kamida iyo dadka cuna dhibkiisii waa dareensan yihin laakiin go-aankii ayaa ka maqan waana inay iska daayaanna waa sahlan tahay waa iska dayn karaan maalmuun bay u baahan tahay kooban inay sabraan oo in badan waxaanu ku aragnay xajka iyo maka boqolaal nin oo waddankeena ka tegey oo xajka tegay oo qaadka cuni jiray oo halkaa qaadkii ka waayay hadday xataa cuni lahaayeen qaarkoodna cibaadadaas iyo qalbigooda aqooye awgii ay isaga daayeen oo qof qura oo dhibaata ay gaadhay aanu ku jirin waxa weeyaan dubaab baa ay cunaya waxbaa dabada iga gelaya waxaan halwasadaasi waalida noocaasa isagaa sameeye xataa hadday dhacdo waa maalmo kooban weeye sabir ayuunbay u baahan tahay iyo qofku inuu arrintii uu go-aansaday inuu ka midho dhaliyo hore uu ugu socdo waxa weeyaan uu u sabro sababta shanaad waxay tahay qofku waa inuu bedelo saaxiibada oo haddaad tira qaadkii baan iska daynayaa kuwii aad wada cuni jirteenna weli sidaa aad ugu xidhiidhsan tahay meelihii aad ku cuni jirtayna weli aad tegayso way adkaanaysaa inaad nafta ka jirta waad garanaysaa ninkii ay balwadiisu ahayd inuu dadka laayo ee boqolka qof dilay ummadii hore kamid ahaa ee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inooga warramay ninkii caalimka ahaa ee rajo geliyey yihi haddaad toobad keenta ilah waa kaa toobad aqbalaya taluusii tawbadiisu ay ku taaba gasho wuxuu dhulkani waa dhul xun dhulku sidiisa uma xuma laakiin dee waa dhul qofku macsiyada inuu ku sameeyo uu naftiisu ay la qabsatay oo u bartay dadkii ku caawin jirayna laga yaabo inay ka buuxaan markaa iskaga tag buu ihi meel heblaayo tag dad wanaagsan baa jooga oo ilaahay caabuda ilaahay subxana watacaala la caabud dad badan oo iska daayay inay dib ugu noqdaan waxa sababa saaxiibada aan wanaagsaneyn dad buu shaydaanku rartay oo qaadkaad xumaantiisa arkaysaan ducaatun ilayhi ah kuwa dadka ugu yeedho ugu baaqa nin baa wuxuu igu yihi qaadkii baan iska daayay oo nin dabadaha ka yimi buu ahaa halkana ka shaqaysta halkaa waxaa xanuuntay qoorta markuu xaggii ku noqday buu isbaaday dabeetana wuxuu dhakhtarkii ku yidhi war waxaanaad ku foorarta uun wakti fara badan ee qoorta wax ku yeelay waa maxay markaasaan gartay ui inuu qaadkii waan iska daayay kuwii qaadka iibin jiray ilay lacag badan baan soo gelin jira oo macaamiil baan u ahaaye ayaa waxay ii keeneen buu ihi isagoo bilaash waa si uu ugu noqdo kadibna uu iyaga uga iibsado marka dambe nin kalena wuxuu ii sheegay nin qaadka iska daayay oo ay qaraabo yihiin oo nin dhan oo soconaya oo dadka farta lagu fiiqo kamidii u yimi oo uu ku yidhi war inuu ninkii hebel qaadka ku soo celi shaydaan baa soo dirsaday oo balaayada dadka inuu ugu yeedho u qurxiyo u diray waayo shaqadan ka maarmahayn buuri dabeetana waan weydiiye waxaan ku uhi markuu qaadka cuni jiray ee imika shaqadiisa bal ka waran wasaawista uu shaydaanku dadka qaadka cuno qulubtooda geliya bay kamid tahay inaanay la-aantii shaqayn karin oo shaqada uu wax u taro wuxuu yihi markuu qaadka cuni jiray 11 ayuu soo kici jiray gelinka hore oo waktiga la shaqaystaba iyadoo arladiiba lagu kala tegay ayuu soo toosi jiray ilaa habeen oo dhan buu soo jeedaay iminkana salaada subax maruu ka soo baxo salaada subax uu masaajid ku soo tukado goobtii shaqada ayuu taagay waa waswaas uu shaydaan qulubtooda ku furay daroogadina ay u sheegayso markaa saaxiibada bedel nabigu wuxuu yidhi almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu la diiniya dhaqan noqdaa saaxiibkii war ciddaad la saaxiibayso ka fiirso dadka balwadaha le haddaad la saaxiibto waxay u badan tahay adiguna inaad barato marka dambe ay ku baraan si aad u og joogto oo man jaalasa jaanasa qofku cidduu la fadhiistuu la jinsi noqdaa soomaalidu waa ku wadhaa caano iyo nabad waxaan ahaynba waa la kala qaadaa waa man jaalasa jaanasadaa weeye oo af soomaali ah arrinka lixaad wuxuu yahay qofku waa inuu waktigii qaadka uu cuni jiray uu buuxiyo oo uu ku buuxiyo shaqo
oo ku buuxiyo cibaado oo ku buuxiyo waxbarasho haddii meeshiisi wali ay u bannaan tahay dushuu ka eeganaya inuu kugu riixo ayaanu ku dadaalaya sababta toddobaad waxay tahay dadka ummaddu ay eegato ee la odhan karo dadka tusaale u yihiin oo manaasib bay taagan yihiin dadku ay kor u eegayaan oo manaasib sare ay u arkaan ummadda waa inay tusaale ugu noqdaan iska daynta qaadka waliba arrinta noocaasi ay baahiyaan dadka madaxda ah ummad ay madaxdeedii qayilayso yaryarkeedu maxay yeeli doonaan iyo kuwa soo koraya kuwa eeganaya hormoodkooda iyo tusaalahooda u arka ay ka mid yihiin madax dhaqameedku salaadiin iyo cuqaal waxyaabaa la yaab kale bay ka mid tahay meelaha qaarkood oo soomaalidu ay degto qof madax dhaqameeda oo qayilaa ma jiro waayo qofka qayila waxaan hagaagsanayn baa ayaa loo yaqaanaa waxaa ka dhacday magaaladeenna inamada madax dhaqameed oo gobol kale ka yimi ay yimaadeen si arrin ay u socdeen ay ugala kulmaan madax dhaqameed waddankan jooga iyo magaaladan dabeetana qoladeenni ay usoo galeen iyagoo bahalkii kilinkilooyinka ku wada sito wada laalaadsanaya oo ay cabbaar markay aamusnaayeen bay yidhaahdeen war odayaashii aanu sugaynay maye waayo may filanahayn dadkii madax dhaqameedka ummadda u ahaa inay yihiin kuwaa daroogada wada laalaadsanaya may filanahayn dhakhaatiirtaa ka mid a waxaa la yaab leh in badan dhakhaatiirta ka mid inay qayilaan iyagu ummaddii cudurka ka daweynaya ayay naftoodiina cudurkii ku miisayaan oo ay ku cabaynayaan ummadda tusaale u yihiin waxaa ka mid a wadaadada wadaadkii diin loo tuhmaayo markuu qayilo islaa diinta isaga wax ka celinaysa ummadda inteedii kalena maxaad u malaynaysaa waxaan leeyahay walaalayaalaan ku gabagabaynaya war bahalkaa aynu ku ixtisaabno oo la dagaalankiisa ilaahaynu ajar kaga doonno sidii la rabay loolama dagaalamo culima sidii la rabay ugama hadlaan dhakhtarna sidii la rabay ugama hadlo madaxina sidii la rabay ugama hadlaan madax siyaasadeed iyo madax dhaqameedba xataa dadkii iska daayay ee dhibaatadiisa si toosa u dareemay ee noloshoodu ay isbedeshay kama hadlayaan oo iska aamusayin in badan baan anigu arkay nin muddo dheer qayilaayo oo iska daayay baan ku uhi ba noloshaadii hore tan ka warran dee maxaan ka warramaa buuhi noloshii hore gebigeedaba waan siiroo gareeyey buuhi waxaan ka soo qaaday nolol aan jirin inay tahay maalintii qaadkaan iska daayo baan cumrigayga kow ka idhi buuhi waa siduu isagu yidhi habeen baanu qaada kaga hadlay masaajidada ka mid a muddo kadib baan masaajidkii ku tukaday laba nin oo dhalinyaro ah ayaa ii yimi waxay dhahen habeenkii baanu go-aan gaadhno oo qaadkaanu iska dayn ka warrama noloshiinii baan idhi dee dad baanu noqonnay bay yidhaahdeen lacagta horta jeebkayga kama faaruqdo ila isagaa jeebka waxa weeyaan leefayey oo xaalufinayey reeraha iyaga iyo carruurtayadiina goor horeaan u hooyeynaa waanaanu isfahan darrada u daran ayuu keenaa oo qofka wuxuu kicinaya cawaadiftiisa oo dhan miduu murugo ku furo iyo miduu farxad waaliya ku furo oo qasabada farxadda waalida waxa weeyaan uu furo iyo miduu uu ku furo waxa weeyaan dareen la-aan iyo miduu ku furo wax kastaba inay ka xanaajiyaan sanqar yar aanu adkaysanahayn xaaskiisii markiiba gacanta la tigsanayay iyo carruurtiisii oo sida bahalaha dugaagga ah ula dhaqmaaya xaaskiisa iyo ubadkiisa marka waxay yidhahdeen waa naga masaajidkiina fadhino qur-aankana waanu dhiganaa maalintiina hor soo shaqaysanaa war dadka qaadka iska daaya oo ka hadla oo noloshii hore iyo noloshan dambe farqiga udhaxeeya dadka u sheega ummadeenna oo dhami waxaan leeyahay halis baynu ku jiraa haddaynu sidan kusii soconno sidan uu xaalku sii ahaado wallahi halis baynu ku jiraa diinteenna halis ku jirta oo jiritaankeenna ku jira oo caafimaadkeenna oo dadnimadeenna halis ku jirta oo xornimadeenna ayaa halis ku jirta marka dhammaanteenba arrinkaasi inagoo ilaahay kaga ajar dalbayna bahalka aynu dagaal la gallo allahuma salli calaa nabiyina muxamed wacala ali nabiyina muxamed kama sallayta calaa ibrahima wacala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد